haddii aad hore u maqli jirtay Elon Musk, Jeff Bezos iyo Bill Gates inay ka mid yihiin ragga adduunka ugu dhaqaalaha weyn, horta weli ma isweydiisay qoyska adduunka ugu hodansan cidda uu yahay. Ku soo dhawaada xalqadeena maanta oo ku saabsan Walton Family, qoyska adduunka ugu dhaqaalaha badan. Balse intaanan kuu bilaabin ka hor, saaxiib waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartid, barnaamijkana noo share garaysid si uu u gaadho dad badan. Mahadsanid. Sida caadiga ah adduunka waxaa ka jira qoysas badan oo hodan ah. Sida ay u badan yihiinna waa qoysas boqortooyo, sida reer Aala Sacuudka Sacuudi Arabiya iyo qoyska boqortooyada Ingiriiska ka arrimiya ee British Family oo kale. Balse qoyska aynu ka hadli doonaa maanta, dawlad iyo boqortooyo midnaba shaqo kuma laha. Hantidoodana waxaa lagu qiyaasaa 225 bilyan oo dollar, sida ku qoran shabakadda Forbes. Haa, waa 225 bilyan oo dollar. Haddaba qoyskan aan ka hadlaynaa waa Walton Family, ama sida laga yaabo inaad u garatid, waa reerka iska leh dukaamada caanka ah ee Walmart Store. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid xaggay ka keeneen lacagta intan le'eg oo aysan dawladaha waaweyn ee caalamka qaarkood aysan bahaysan. Barnaamijku inta uu socdo ayaan ku ogaan doonaa xog ku saabsan reerka hodanka ah iyo halka ay lacagtan ka keeneen. Sam Walton, oo ah askari ka tirsanaa militariga Maraykanka, ayaa markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu go'aansaday inuu furo dukaan uu ku iibiyo alaabo qiimahoodu uu jaban yahay, gaar ahaana qudaarta oo uu u arkayay inay tahay alaab mar walba la heli karo. Haddaba si uu ganacsigan u hirgeliyo, wuxuu u baahday lacag. 20,000 oo dollar ayuu ka daynsaday sodogii, waxaana uu ku daray 5,000 oo dollar oo uu kaydsaday 3 sano oo uu militariga Maraykanka ka mid ahaa. 1962kii, Sam iyo Bud Walton waxay iibsadeen baraanji ka mid ah dukaan Ben Franklin la odhan jiray oo ku yaalay gobolka Missouri ee dalka Maraykanka, waxaana uu noqday dukaankii ugu horreeyay oo shirkadda Walmart yeelato. Isla muddo aad u yar kabacdi, dukaankii ayaa si cajiiba kor ugu soo kacay oo shaqaale badan iyo dukaamo kale oo badan ayay sameeyeen. 1977kii, munaasabad ay u qabteen ganacsigooda waxa ay ku sheegeen in 190 dukaan ay ku dhex leeyihiin dalka Maraykanka gudihiisa iyo in ka badan 8,000 oo shaqaale ah, waxaana ay ku qaadatay 15 sano oo keli ah inay gaadhaan heerkan. Sam Walton, oo ahaa aasaasihii Walmart, waxa uu dhintay 1992kii. Xilligaasi shirkadiisu waxa ay lahayd 1735 xarumood oo tafaariiq iibiya, halka walaalkii Bud Walton uu isna geeriyooday 3 sano uun kadib dhimashadii Sam. Waxaana haatan shirkadda maamula ubadkoodii oo maanta dad waaweyn ah, waxaana ugu caansan Alice Walton oo ah gabadha labaad ee adduunka ugu hodansan. Shirkadda Walmart maanta waxay leedahay in ka badan 10,500 oo dukaan, waxaana u shaqeeya in ka badan 2,200,000 oo shaqaale ah. Waxay ku taallaa in ka badan 20 waddan oo caalamka ah. Sidoo kale, qoyskan caanka ah ee Walton Family, markaad maqashid waxaa kugu soo dhacaya isla Walmart oo ah meesha ay ka keeneen dhaqaalaha. Dhaqaalaha qoyskani keliya kama yimaado hal il oo ah Walmart, balse waxaa jira oo kale shirkado badan oo hoos yimaada. Waxaana jira kooxo kubadeed oo ay gaar u leeyihiin qaar ka mid ah family-gan. Qoyskan ayaa aad caan uga dhexa gudaha waddanka Maraykanka. Barnaamijkeenu intan ayuu ku eg yahay maanta. Fadlan ha naga ilaawin inaad subscribe noo saartid channelka. Mahadsanid.